garoonka Turkish Stadium ee magaalada Hargeysa ayaa waxaa maanta ka furmay tartan ciyaareed kubadda cagta oo soo qaban qaabisay shirkadda Somtel. Xafladii furitaankaasi tartankaasi ayaa waxaa ka soo qayb galay mas'uuliyiin ay kamid yihiin la taliyaha wasiirka wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha, agaasimaha guud ee wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha Somaliland, madaxa suuqeynta ee shirkadda Somtel, mas'uuliyiin iyo marti sharaf kale. Furitaankii xafladaasi ayaa ugu horeyn halkaasi waxa ka hadlay isla markaasina dardaaran u diray dhammaan dhalinyarada magaalada Hargeysa. La taliyaha wasiirka wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha Somaliland Xasan Waraabe Cadde waxaan hadaladiisii kamid ahaa waxa kaliya ku dardaarmaya waxa weeye shirkadda Somtel waa tijaabo horena waxba idinku soo qabatay iminkana waa tijaabo haddii aad si fiican uga baxdaan kan iyo mid lamida iyo kuwa ka weyn idin qaban doona insha Allah ta'ala dhinac walba hadii kubadda cagta tahay basketka tahay orodada tahay sahal jeeriyo aba ku aqoonba waxa kaliya aan leeyahay maanta dhalinyarada wax kula dardaarmaya lugna maanta waxa weeye lugna difaac baynu kaga jirin awdabta dalkeennii in layna soo weeraray lugna sportigeena ku wadayna insha Allah ta'ala sababta waxa weeye wadaniyadu inay qayb ka mid ah dhiigeena ka mid noqoto weeye waxaan ku hambalyeynaa ciidanka Jamhuuriyadda Somaliland oo iska difaacay weerarkii lagu soo qaaday sportiga waxa weeye oo ku dardaarmaya waxa weeye in la ogolaado Somaliland aqoon fiican baan u leeyahay aqoontaan u leeyahay weeye ma yaqaanaan guul darrada ma yaqaanaan waxay ka yaqaanaan guushuna laba nin ma wada helaan oo gari laba nin ka wada qoslaysiiso marka waxaan leeyahay fair game-ka ayaa wuxuu ku jira adoo ciyaar fiican in laga badiyo in uu qofka laga badiyo ama tiimka laga badiyo saaxiibkii kale gacan qaado isaguna uu bari badiyo koobkana waxaa lii rajaynayaa waa bil Ramadaan inaad iska ilaalisaan wax ay ku saabsan iyo wax saaxiibka wuxuu dhimaya inaad meesha ka tiraadaan oo maalinta soo gabagabana aynu ku ducaysano koobka cidii Ilaahay siiyo inaynu xadeyno oo hambalyeeno intaasaan kula dardaarmay. Dhankiisa isaguna waxaa kaasi ka hadlay isagoo afka shirkadda ku hadlaya madaxa suuqeynta ee shirkadda Somtel Qadar Cabdiraxmaan isagoo sheegay in shirkadda Somtel ay markasta garab taagnaan doonto dhalinyarada Somaliland. shirkadda Somtel sidaa ka waqaaba waxa ay ku timaadayso koobkan manaha koobkan oo kaliya koob badan baan ka dhalinyarada mar walba oo iskarab taagnaa shirkadda Somtel sida aad ogtihiin waa shirkad dhalinyaro oo shirkadu furan marka hore dhalinyarada dadka shaqeeya waa dhalinyaro cidda ugu badanaysa waa dhalinyaro runtii waa mid aan ugu talagalay in dhalinyarada ay u adeegto iyo guud ahaan runtii qaybaha kala duwan ee bulshada laakiin se waa mid shirkadda Somtel sababta ay u noqoto saaxiibka dhalinyarada waxa weeye shirkadda Somtel adeegyada ay bixiso واحد تكنولوجيا التكنولوجيا بمساعدة الاستعمال اليرادة رنت وضعت التكنولوجيا دفاعية وضعت الإنترنت دفاعية وضعت الموبايل دفاعية وضعت كهرباء دفاعية سووا تاسبيب برضو اليرادة أي شركة وشغليه الأجهزة أي سوق بس شركة أي وشغليه وحنا إن شاء الله ورجينا إلى نسبة كاريو اليرادة ما بس يجوابها يكون لهم ما بس يكملوا هي أي شركة سوق كشركة اليرادة أصلا ما بس يجوابها ومن المرة بس كده تعلم Somtel runtii ciyaaraha aad bay u tuntigisaa wasaaradda sportiga ama wasaaradda ciyaaraha runtii aad baan uga shaqeynaa koobka gobolada kala shaqeynaa koobkii qabtaan oo dhan baan kala shaqeynaa gobolada waxaan jeclay insha Allah inaan garab taagnaano waxyaalihii ugu weynaayeen oo ruuxa shirkadda Somtel way soo kordhisay waxaa kamid ahaa iyadoo dalkeena ciyaaraha la iska ciyaaro oo runtii aanay qiimo badan sameyn oo inta garoonka joogtaan marka ay daawato shirkadda Somtel 2011 waxa ay fikir iyo maal badan ba gelisay inay ka dhigto live qaar adduunka oo dhan laga daawanayo oo gobolada laga daawanayo oo meel walba laga daawanayo qofkii uu reeyay ciyaaraha gobolada ee ka dhacay Qurbo Alamsi Stadium ayaa runtii hawsha aan ku bilownay waqtigii 2012 ahayd waqtiga runtii aad bay dadku u yaabeen adduunka oo dhan baa laga daawaday koobkii ciyaaraha gobolada waxaanay runtii shaqada gelisay kharash aad iyo aad u badan iyo fikir aad iyo aad u badan maanta runtii taas way hirgashay oo meel kasta ama koob kasta oo halkaas ayadoo runtii live laga dhigayo adduunka oo dhan laga daawanayo iyo fikirkeedana runtii shirkadda ahayd iyo maalgelinteeda waxaan insha Allah rajaynaa inaanu koob kasta oo dhalinyarada lagu dhiirigelinayo anaguna qaybteeda ka qaadano oo isku bartaagno ujeedooyinka ugu badan ee aynu qabanay arrimaha noocan waxa weeye waa dhalinyaradu inay ku walaalowdo inay isdhex gasho
inay saaxiibtinimo iyo walaaltinimo dhexdooda ka timaado inay wada ciyaaraan inay balwadda iyo maxay ahayd tariibka iyo arrimaha aafada ee dhalinyarada runtii dhib weyn ku haya aynu kula dagaalano oo dhalinyarada aynu tusno runtii in shacab iyo dowlad iyo shirkadaba la garab taagan yahay wax la gelinayo anagu runtii taas baan insha allahu tacaala sii wadi doonaa waxaan u mahadcelinayaa dhammayntii dadka koobka soo abaabulay oo ka mid yahay cabdilaahi runtii howlka geliyey iyo tiimkiisa la shaqeeyey wasaaradda runtii qayb weyn ka qaadatay xasan iyo kaalid iyo dhammaan saxaafadda kasta oo koobka kala qaato waxaan leeyahay aad iyo aad badan mahadsantihiin shirkadda somtel mar walba waxay insha allah idiin balan qaadaysaa inay in dhalinyarada ay garab iyo gaashaanba u tahay oo ay barbar taagan tahay waxaan insha allah rajaynaya bisha ramadaan si habsami leh oo akhlaaq iyo wanaagsan oo qurux badan inuu inagu socon doono inagu bilaabi doono isla markaana inagu dhammaan doono ciidan insha allah si farxada oo wanaagsan aynu annaga iyo kooxaha guuleysta aynu maxayna insha allah wada heli doono kooxaha guuleysayna runtii waxa way muhiimadeedu inay dadaalaan insha allah iyaguna waqtiyada dambe jimacsiga bay ka faa'iideysan doonaan shirkaduna way garab taagan tahay aad iyo aad baad mahadsantihiin gabagabadii xafladaasi lagu furayay tartan ciyaareedka kubadda cagta ayaa waxaa halkaasi hadal dheer oo dhinacyo badan taabanaya ka soo jeediyey agaasimaha wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha Somaliland آلية هذا يوم وسردهن وحنا يقولون إن هذا يرد على الشرب يرد عفمات كمان إن هذا الشرب هذا شان استعجاب كذا تشوف إن العيال اللي جلها شو يعني أقول مرة واحد كل جلنا هذا اللي يرد إن سلا بروح بدنا العيال تهو بلعب يعني كل ميان واحد عدم هذا قرنا واحد عدم قرنا سبروح بدنا العيال تهو بلعب وصايم قال إنه عيال سبروح بدنا بلعب مثلا لكن واحد عدم قدام بين حد عياله أي كيران من هذا يمر الرجال كيران يخاف waxaan ku baraarujinayaa mar kastoo ay maxay ku socotaan in aynu bisha Ramadaan ay barakeysan in la ilaaliyo maxay xushmadeeda in maxay bisha Ramadaan ay dadku ay maxay sameeyeen inaynu ka ilaalino maxay dadka keenayeen khilaafkii muran ciyaartana maxay waan u baxay hambaleenaya 20 kooxood ee ka tirsan maxay degmada ka kala jooga maxay garoonka maxay loo taxato ugu fiirno waan u hambaleenaya waxaan ku baraarujinayaa inay ciyaar nadiif ah ka ciyaaraan aad iyo aad waxaan u hambaleenaya dhalinyarada maxay ka qaateen kooxaas سوتو الكستوب زماتون عملية وسمت بحال كوكتين وداش عفضة حسب العدور تريه خضر هذا المدح هذه بيت سمت يغنى حوالي لهم عملية أمام اللي سلفوا على ياتوا الكوز وحطوا الكوزين وحن كبر الشريعة اليرد إن أي نقدان لمن سلام هذا الشريعة مرور بوب هذا الجديد عليه والجديد أيام مروقة بد وحن نسون الهوية وبدو نسون من بدو حب عن تين الجلو والرياض بس ما كان هذا العيار يلا خلاص بس ما كان وحن العيار يوقف بدوي ما هذا بدأ بهذا يعني وحن هذا كله ينوح ما كان سيف كده ينوح خلاف نحن غير كيني عكس الجرام بدنا نوحد هذا خلاف واحد كان هذا كله هو خلاف العيار كله هو خلاف فكان العيار وحن دورنا هنا العيار هنا يمكن ساعة سيدا يقول دعونا يعني العيار دعونا يعني سعد من السنة يوقف في هذا بدأ عوية دجال معه عوية بدأ عوية بركة عليه بركة ملوي أما صاحبك بدني أما لا بدني واحد بدي سوينا هم مليونوي كوحات كلنا وأنا بهذا الدوري هذا عيار تاعي أو كان لتي واحد معنا يوجا بحال بدني ما لقى بدني لكن ما هين إنه بشر بدن يبيل خستا إنه ممكن سبوق بلا يكون وحنا كبر روتيني بشر بدن كوحات كعيار يوم حين قرما ده كبر روتيني إذا احترامنا بشر بدن وأنا ضد هذا يعني كل من هذا بوق يقلاسه السنة الجديدة يكون مستان tartan ciyaareedkan kubadda cagta ayaa waxa ku midiyay tartanada la qabto bisha barakeysan ee Ramadaan waa Khadar Ismaaciil Maxamed Khadar Dhambaal iyo Maxamed Amiin Axmed Abiib Muqbaahiye caalamka badda Aswan 4 TV magaalada Hargeysa